bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada tusmada wararka qodobada maanta aad u maqli doontaana waxaa ka mid ah muuse gaali wafdigu horkacaya oo gaaray magaalada baydhabo iyo ujeedka wafdigaasi gaaray magaalada baydhabo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xariga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho qarashka ku baxay munaasabadii 12 abriil xilli dalka ay macluul ka jirto Puntland oo soo sugotay xildhibaanada maamulkaasi laga soo doortay iyo crash oo farliin u diray maxaa sababay in roob leh lagu adkaado adoodii kuraasta koonfur galbeed Soomaaliya guddiga doorashada Hirshabelle oo shaaciyay jadwalka doorashada 2 kursi oo kamid ah golaha shacabka Soomaaliya intaas waxaa ku dhan qodobadii ugu door korona daawade waxaan ka codsanaynaa inaad saarto subscribe like share comment inaad ka bixiso wad ku maasatay qodobka ugu horeeya wuxuu yahay muuse gaali wafdigu horkacaya oo gaaray magaalada baydhabo iyo ujeedka wafdigaasi gaaray magaalada baydhabo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse gaali yuusuf iyo wafdi uu horkacayo ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya muuse gaali ayaa waxaa safarkan ku wehelinaya xubno ka tirsan fiid wasiir kamid ah xukuumadda Soomaaliya ujeedka wafdigan ayaa ah sidii ay ugu qayb noqon lahaayeen kulamada xal raadinta ee ka socda magaalada baydhabo si loogu gaaro tabashada ay qabto koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiyaha fiid ayaa ku biiraya dadaalada ka socda halkaasi gudoomiyaha guddiga fiid ayaa ku biiraya dadaalada ka socda halkaasi uu hormuudka ka yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor koonfur galbeed ayaa qaadacday shahaadaysiinta xildhibaanada iyo ka qaybgalka xafladda dhaarinta xildhibaanada cusub ee bari ka dhacaysa teelada afisoni magaalada muqdisho maamulka koonfur galbeed ayaa qaadacay shahaadaysiinta xildhibaanada iyo ka qaybgalka xafladda dhaarinta xildhibaanada cusub oo bari oo khamiis ah ka dhacaysa teelada afisoni ee magaalada muqdisho koonfur galbeed ayaa ka carootay kadib markii 3 kamid ah xildhibaanada laga soo doortay deegaanadooda uu guddiga amray in doorashada lagu noqdo sabab la xiriira inay qalad ku jireen sida uu sheegay guddiga hogaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafdagaren ayaa ridoora xukuumadda Soomaaliya inuu isaga xayiraad mas'uul ka yahay isagoo kursiga u raadinaya qofka kooxdiisa ka tirsan qofkaas ayaa loo fahansan yahay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo isaga raadinayay kamid noqoshada 3daasi kursi ee guddiga uu joojiyay waxaa dhawaanahan socday wada hadallo ay xildhibaanada bilaabeen oo marka dambe ku soo biiray hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor balse wax natiijo la taaban kara kama soo bixin inkastoo Qorqor uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo xubnaha uu guddiga u diray Baydhabo ayaa imaanaysa iyadoo xubnaha beesha caalamka ay guri wadaan dadaalo ay rabaan in kuraasta la xayiray la fasaxo iyadoo cadaadis saaraya ridoora xukuumadda Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka fiid farmaajo xariga ka jaray dhismayaal cusub madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xariga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho farmaajo ayaa wasaaradda gaashaandhigga kaga qayb galay xuska sanad guurada 62 ee aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa xariga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay qoraal xalay lagu daabacay bogga Villa Soomaaliya qoraalka ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa taliska ciidanka xoogga dalka iyo hoggaankiisa dhismaha ku bogaadiyay fulinta dhismayaasha tayada leh oo ah kuwo si isxilqaan ah u dhiseen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana uu ku booriyay inay dardargeliyaan dadaalkooda ku aadan dib u dhiska xarumaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qarashka ku baxay munaasabadii 12 abriil xilli dalka ay macluul ka jirto munaasabadii xuska sanad guuradii 62 ee aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegneed shalay 12 abriil ayaa madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku muujiyay awood ciidan iyo shayga kaliya ee ku guuleystay inay tahay dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inkastoo madaxdii ka horeysay ay bilaabeen tayeynta iyo dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sida aan xog ku helnay madaxweyne farmaajo ayaa dabaaldega munaasabadda 12 abriil ku qarash gareeyay lacag dhan 3 milyan oo dollar xilli gobolada dalka qaarkood ay ka jirto macluul baahsan oo dad iyo duunyo saameysay warbixintii ugu dambeysay qaramada midoobay ayaa sheegaysa in 6 milyan oo muwaadiniin Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo ay ku jiraan farmaajo ayaa khudbadii uu ka jeediyay ka tarjumaysay ololihiisa musharaxnimo isagoona
isu muujiyey inuu yahay wadani inta kale ee ka fikir duwana ay yihiin muwaadiniin dalka la jecel dhibaato. waxa uu kale oo khudbadiisa ku sheegay in uu ku guuleystay dhismaha ciidan tayo leh oo dalka difaaci kara, inkastoo uu carabkiisa ka ilaaliyay in madaxweynayaashii hore ay yihiin kuwa soo bilaabay in la dhiso ciidan Soomaaliyeed. waxaa la og yahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu yahay kii dowladda Turkiga heshiiska dib u dhiska ciidamada Soomaaliya la saxiixay iyo xarunta tababarka ciidamada ee Turkizom in uu bixiyo dhulkaasi. Puntland oo soo sugotay xildhibaanada maamulkaasi laga soo doortay iyo Karaash oo farliin u diray kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa kulan dardaaran ah iyo sagootin la qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ku matalaya Puntland ee ku sugan magaalada Garowe. Axmed Karaash oo dhinac fadhiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Awil ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee ku sii jeeda Muqdisho ku maamusay kulan sagootin ah. madaxdan ka tirsan Puntland ayaana xildhibaanada kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarka maamulka Puntland ay matalaan, sidoo kalena ay noqdaan xildhibaano isku duuban oo si wadajir ah u shaqeeya. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ku matalaya Puntland oo ku sugan Garowe ayaa maanta ku wajahan magaalada Muqdisho sida ila kala duwan u sheegeen warbaahinta. xildhibaanada oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa ku sii jeeda Muqdisho si ay uga qayb galaan dhaarinta xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. dhaarinta xildhibaanada ayaa loo qorsheeyay Khamiista berri ah oo ku beegan 14 bisha Abriil sanadka 2022. waxaa lagu wadaa in dhaarinta kadib xubnaha laga soo doortay Puntland ay dib ugu soo laabtaan magaalada Garowe. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Axmed Karaash iyo gudoomiyaha Cabdirashiid Abwaan ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Garowe xildhibaanada ku booriyay inay midoobaan maadaama dalka Soomaaliya ay jiraan culays badan oo haysta. maxaa sababay in Rooble lagu adkaado doodii kuraasta Koonfur Galbeed Soomaaliya? 4 kursi ee guddiga doorashooyinka ee heer federaal xayiraad geliyay ayaa la filayaa in la fasaxo sida ila kala duwan lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen warbaahinta. waxaa maalmaha socday cadaadis ballaaran oo ay beesha caalamka ku haysay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, la taliyaashiisa iyo guddiga doorashooyinka ee FID ku aadan in si degdeg ah iyo shuruud la'aan ah loo sii daayo kuraasta la xayiray. kuraastan uu ka mid yahay kursiga wadalhaynta badan ee Hoob 86 ee uu ku guuleystay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasi oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, ayaa la tuhsan yahay in hakintooda ay siyaasad ka dambeyso sida ahna kursiga Fahad sida ay sheegay ila kala duwan. war loo kalsoon yahay oo ay heshay warbaahinta ayaa xaqiijinaya in beesha caalamka ay luuqad adag kula hadashay dhinacyada Soomaalida, isla markaana cadaadiska 24 saac ee soo dhaafay ku kordhay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka. shir muddo saacado ah ka socday Muqdisho oo dhexmaray xubno aad ugu dhow ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa loo xilsaaray sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila kala duwan inay ka soo tala bixiyaan go'aanka laga gaarayo kuraastan iyo sida loogu bixi karo cadaadiska reer galbeedka. cadaadiskan caalamiga kadib xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa go'aansaday in xubno ka tirsan FID u diro magaalada Baydhabo iyadoo maanta halkaas ay gaareen kadibna ay sii daayaan kuraasta xayiran sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi. xubno ka tirsan safaaradaha UK, Mareykanka, Midowga Yurub iyo xafiiska qaramada midoobay ee howshan garwadeenka ka ah ayaa aaminsan inuu dhaqaaqay tareenka doorashada Soomaaliya. xafladda dhaarinta ayaa waqtigeeda ku dhacaysa iyadoo la filayo in kuraasta la fasaxa galabta ilaa caawa sida ila kala duwan ay u xaqiijiyeen warbaahinta. guddiga doorashada Hirshabelle oo shaaciyay jadwalka doorashada 2 kursi oo ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya. guddiga doorashooyinka ee heer maamul goboleed ee Hirshabelle ayaa jadwal cusub ka soo saaray doorashada 2 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaas oo deegaan doorashadooda tahay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. 2 kursi ee jadwalka cusub ee waqtiga doorashadooda dhacayso ayaa ay shaaciyeen guddiga ayaa kala ah Hoob 106, Hoob 24, waxaana labadan kursi doorashadooda inay dhacdo ay ahayd sidii horey ay u shaaciyeen guddiga Sabtidii la soo dhaafay. hase yeeshee waxaa la sheegay inay dib u dhaceen isqabsi ka dhex jiray beelaha iskale labadaasi kursi. jadwalka cusub ee guddiga doorashooyinka Hirshabelle ay shaaciyeen ayay ku sheegeen in diiwaangelinta musharaxiinta ay bilaabanayso maanta oo taariikhdu ku beegan tahay
16 bisha Abriil islamarkaana doorashada ay dhacayso berito oo Khamiis ah taariikhduna ay tahay 14 Abriil sanadka 2022. Hirshabelle iyo Jubbaland ayaa ah labada maamul goboleed ee wali aan dhameystirin doorashada kuraasta golaha shacabka, waxaana berito oo Khamiis ah lagu wadaa in la dhaariyo xildhibaanada cusub. intaas waxaa ku dhan warkii aad kala socoteen tusmada wararka daawade. haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka tusmada wararka, waxaan kaa codsanaynaa inaad saarto subscribe, like, share, comment inaad ka bixiso, waad ku mahadsan tahay.